munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay xuska sanad guurada maamul goboleedka SSC ayaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana maanta magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn si rasmi ah loogu qabtay xuska sanad guurada maamul goboleedka SSC iyadoo ay ka soo qayb galeen hoggaanka badbaadinta mideynta gobolada Sool Sanaag Dr. Salabaan Ciise Axmed Xagle Toosiye hogaamiye ku-xigeenka badbaadinta mideynta gobolada Sool Sanaag Cornel Cali Sabri guddiga golaha khusuusida wasiirka warfaafinta iyo dhammaan xubnaha maamulka goboleedka SSC sidoo kale waxaa munaasabadan iyana ka soo qayb galay ciidamada qaranka ee qalabka sida daraawiishta maamulka SSC waxayna ku soo bandhigeen fagaaraha hore ee dugsiga hoose dhexe daraawiishta magaalada Buuhoodle gaadda ciyaar iyo dowladda military sidoo kale waxaa munaasabadan xuska sanad guurada maamul goboleedka SSC ka qayb qaadanayay dhammaan bulshada iyo shacabka reer SSC iyadoo ku soo bandhigay dareenkoodana ku muujinayay heedilada ay u qabaan maamul goboleedka SSC waxaana maanta fagaaraha hore ee dugsiga hoose dhexe daraawiish soo buuxdaafiyay boqolaal dadweyne oo ka mid ah shacabka deegaamada Sool Sanaag sidoo kale xuska sanad guurada maamulka SSC ayaa laga xusay qaybo ka mid ah deegaamada Sool Sanaag waxaana maanta si rasmi ah magaalada Buuhoodle lagu qabsoontay xuska sanad guurada maamulka SSC iyadoo ay ka qayb qaateen hoggaanka iyo hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC waxaana xafladdu u qabsoontay sidaan waxaana halkaas kooban oo ku muujinayo farxadda iyo damaashaadka maamul goboleedka SSC tan iyo intii la aasaasay oo imika ay ka soo wareegtay sanad guuradii labaad ee maamulka SSC tan iyo intii la aasaasay waxa uu hogaamiye ku-xigeenku ku dheeraaday faalla dheerna ka bixiyay tan iyo aaskii maamulka SSC iyadoo maanta uu ku tilmaamay inuu laba jirsay maamulka SSC waxaana hogaamiye ku-xigeenka hadaladiisii ka mid ahaa dadkii boqolka xalaasha waa kuwaas waxaan anagu waxaan u lahaa Soomaali weyn iyo Soomaalinimadii hore naga luntay wassalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوني السلاك وداية جبد وادلالين من حنتي صبحية من نفتي صفرة من محايا هايتوي قتلية من حبد أولده وادلاشين سلاك يعين ومركي يقول ريسي سندبور ومركي اللبان سندبور هذا أي نقص بالدنيو مقالة بوهورني أمسح إذا بدأ كان السجيان أمنية وعليكم مقايمه حدودها قبلك إنه قبلك الصول آتياد الآتيين sanadkii hore waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha khusuusiga maantana waxaa ka soo qayb galay dhammaan hoggaankii SSC oo isku dhan waad ogeydeen saa u dadaasheen sanadkan taa ku noqon maayo goobjoog baad ahaydeen waxaan la ilaaweynin rag iyo dumarba sidii aad uga qayb qaadateen inaynu hantino gobolka oo aynu gacanta ku dhigno maanta iyadoo aan cidina inagu haysanin oo aynu xor nahay oo aynu maxay ahaytoy Soomaali weyn iyo TSC u dabaaldegayno waajibkiinni waa gudateen reer Buuhoodle
magaalada laascaanood gacanta kuma haysa SSC cadow baa gacanta ku haya ninka u taliya SNF-tana booqasho ku yimi wiiga ka laascaanood iyo gambar awaamiir cusub oo horlana saraakiisha ciidamadiisa maleeshiyaadka ayuu siiyey inay ku sii fidaan gobolka taa waa inla socodsiinayaan inana iyo ilaahayna tala kale nuuleen gacantaynu ku jiri doonnaa haddii ilaahayno waxaan rajaynayaa sanadka dambe laascaanood naftigeeda inaynu kaga khudbadayno oo SSC sidoo kale waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay shacabweynihii isugu soo buuxdhaafiyey fagaaraha hore ee dugsiga hoose dhexe Daraawiish isla markaasna kala qayb qaadanayay farxadda iyo damaashaadka maamul goboleedka SSC iyagoo dareenkooda ku muujinayana waxaa hadaladoodii ka mid ah SSC oo fadaraana oo ummadda Soomaaliyeed dhan yeeraysa oo wixii caalam yeeraysa oo midnimada Soomaaliyeed yeeraysa oo ummadda yeeraysa oo taxriis yeeraysa oo ku salaamaya kuna soo dhawaynaya taliya guuta علي كبح فضلا علي كبح isbed shay adayada dhani maanta iftiintay isbed shay aktabare allah mahadle ku aaminay maanta SSC la asaasay didibka aastay maanta SSC aanu asaasnay didibka aastay oktobare allah mahadle maanta SSC aanu asaasnay didibka aastay oktobare allah ku aaminay maanta SSC aanu asaasnay didibka aastay oktobare allah mahadle ku aaminay maanta saageen garab istaagnay ilaysku oktobare allah mahadle maanta saageen garab istaagnay ilaysku muuqda oktobare allah mahadle ku aaminay ayaama taasan ayaama khayr leh oktobare allah mahadle ku aaminay arariya suuban ayaama khayr leh oktobare allah mahadle dagaalkii ka shaale sharaf daarood ku dheey maxaa tiri qadar gabaya oo kal shaale laga mariyay sida sida magaca maxamed jaamac daarood ku dheey ku lahaa dhagaxba u horeeyay isagoo dhammaystiran oo aan cidi dhaliilaynin dhoomihii isaaqoo wada socda yaa dhuunta noo galaya dhaar waxay ku marayaan inay xamar isdhoobaane waxay sii dhex marayaanna waa dhegihii daaroode mareexaan dhankaa ugu xiga ayay dhabi u haystaane dhugma looma waayina waxa ka maqan dhiidhigii hore kuwii nagu dhololi jiray dhanac la leebsiiya waa kaa waraabuhu dharqaday dhinacyadoodii iyo balaandhowrna arrinkaa dhigtay shiilaanya wada dhuuman kari waaye ninkii dheeha gowracay cirkaa dhinac madoobeeye kaaruhu dhirtuu jeedhay iyo meydka dhacadiida dhoohanaha daarood waa og yahay saad u dhagarteena dhiirane isaaq baa ku yidhi oo dhankaa qabee kuwii nagu dhalali jiray dhamac la leefsiiye waa kaa waraabuhu dharqaday dhinacyadoodii balaandhowrna arrinkaad dhigteen dhaxal wuxu reebo SSC dhawaan soo baxday lana dhaqaaleeyey oo tiri dhulkii hooye mee dhalay raggiisiiye u dhawaaqay Soomaalidii dhoofka kala aaday calankii dhaxayska u ahaa dhaaba golihii ingiriis dhashiisii wataa meel ka soo dhacay waligiiba waa nagu dhintaa gaalka dhoor kaliye kuwii nagu dhalali jiray dhamac la leefsiiye waa kaa waraabuhu dharqaday dhinacyadoodii iyo balaandhowrna arrinkaad dhigteen dhaxal garaad waa waxaan dhimanna noolayna waa nimanka la haysto garaad waa waxaan dhimanna noolayna sidii boocil awrow la rabo doon hore aad boqoyo الفارح وحنا ardada dhigato secretary musay waxaan halka waxaan balyeeyaa ciidanka qaranka SSC soo sanaag cayn kuwaas oo ah sanad guuradii labaad waxaan u hambalyeeynaa gacmo fure ku soo dhaweynaya ciidanka si aad iyo aad uga soo dhaweynaya waxaan leeyahay wixii cadow ha jabeen hadii qaata waa lagu yaqaan dhowrasho lahayn gobolkii dhexyaalka u ahaa ayay cadow u dhiibeen dhagteedii waxa dilay hablaha dheesha loo tumay dhabta waxay ku haystaan caruuruna loo dhalay kuwii nagu dhalay jiray dhabac la leefsiye waa ka waraabuhu dharqaday dhinacyadoodii balaandhowrna arrinkaad dhigtay dhaxal wuxuu reebo الله كدغو اساسينا تي لا كونا عدالد الله كدغو annaguna waxaanu leenahay hadaanu gabdhaha nahay adduunyada dhami maanta iftiin aamuka ka daayay
إلا نقول مدة المدة دفنداف بركي لو جريدي أيه دبر كتير شيء واتي قريها نوديجين دقري يدور نيك ديك دوري مالي تهدرجي كون نقول له الشرير مع اللي لبسيه واقع ورابوه درقدي من عيوه دي بلاندو نارين كادك تنحلو قريبه هذا صندوق waxaan u hambaleynayaa dhammaan dadweynaha SC ee ku nool gobolada Sool iyo Sanaag waxaan leeyahay ku gaara sanadkan sanad barwaaqo bismillaahir rahmaanir rahiim aniga عبد الحسن فرح waxaan leeyahay SC han noolaato hambaliyaan leeyahay ciidanka qaranka SC cadawgooduna ha jabaan sanad guud wacan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha SC waxaan leeyahay sanad guud wacan sanadkiisa barwaaqo ku gaaro cadawgiina بسم الله الرحمن الرحيم مقعد محمد عيسى محمد waxaan hambaliyo uga daray halka dhamaan shacabka Soomaaliyeed joogan waxaan leeyahay Soomaaliya ha israacdo ciidanka qalabka sida Soomaaliya Sanaag yacan بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Yurub Saciid Cismaan waxaan ka salaamayaa yaagoon aduun hay nimankii abuure inkastana eetirin abalkoodu wuxuu yahay ama nagu xasuuste waa laydin aaminay idinkoo aqoon inamada la doortiyo abanduulahoodow awmada xilkeediyo amaana idin saarane haddii aad lowdeen waa iga ogaysi waa iga ogaysi ka soo mara abalkoodu wuxuu yahay ama nagu idinkoo inamada la doortiyo